الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ما الله سبحانه وتعالى marka labaad su'aashaad weydiisay sidoo aragtaa dawladda uu soo dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan u arkaa dawlad wanaagsan oo waliba aad uga fiirsaday waan hambalyeeynaa dawladda uu soo dhisay madaxweynuhu shacabka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay si wanaagsan u shaqeeyaan waayo raggu kaalku doonaha yeeshay hadaanu helin ummad isbarbar taagto oo la shaqeysa waxa la yiraahdaa farkali fool ma dhaqmo idina wax ma qaban karto waa dawlad hadii la shaqeeyo oo la soo dhaweeyo oo waxay ku khaldayna loo tilmaamo waxay ku saxayna lagu taageero wax qaban karta dhammaanteen wax qabad baynu baahanahay iyo inaynu nidaam wanaagsan iyo dawlad wanaagsan helno waxaanay ku xiran tahay si ummadu wada shaqeysay team wada noqoto madu haday midnimo weydo iyo isku duubnaan iyo wada shaqeyn waxba ma qaban karto qofna kaliya wax ma bedeli karo marka waa xukuumad bilow oo wanaagsan oo madaxweynuhu soo dhisay laakiin shacbiga reer Soomaaliland waa inay la yimaadaan wada shaqeyn fiican oo wixii ay ku khaldan yihiin ka qabtaan wixii ay ku saxan yihiin boqolkiiba boqol ku taageeraan ay ku shaqeeyaan wada shaqeeyaan marka xukuumadda waa soo dhaweynayna rag badan oo wax ku oolaba ku jira maduna runtii wax weeyaan waxay ka sugaysaa isbedel wanaagsan iyo wax qabad wanaagsan iyo horumarin dhinac walba la ka sugaysaa waana xilli adag runtii ay ku soo beegantay marka deen la shaqeeyaa baa fiican anna waa soo dhaweynayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland teamku uu dhistay sida uu monitor gareeyo iyo maamulkiisa ay gacantiisa wax walba ku jiraan Sultan Salman waxaan arkaa inay beeshaada ka dhex muuqan xukuumadan Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub soo magacaabay oo iska dhex arkeen arintaas adiga si kula muuqata dadka waxa weeye markaad leedahay beeshaada kama dhex muuqato beeshaadu way ka dhex muuqataa waliba manaasibta ugu waaweyn ay ku haysaa wasiirka wasaaradda maaliyaddu dadar beesheeda weey caafimaadku beesheeda weey hadaad u jeedo jufada hoosana reer waliba jufadiisa yare hoose ma inoo gaadha dawladda Soomaaliland hadaan u qaybsano jufo ma inoo gaadha inoo ma gaadho laakiin way ka dhex muuqataa beesheedu si weyn bay uga dhex muuqataa manaasibta ugu waaweyn way ka haysaa dawna maaha in jufo walba iyo reer waliba uu doono uu kama dhex muuqdo Soomaaliland saa inoo deeqaysaa dawladdeedu waxay inoo deeqaysaa sida ay u maamusho wax iyo cadaalad ay ku maamusho iyo nidaamka wanaagsan bay nagu deeqaysaa reer waliba waa ana ka maqan iyo anu kama dhex muuqdo haddaynu nidaamka ku shaqeyno in dawladda deeqi mayso way kooban tahay dawladdu tii horena way ka kooban tahay laakiin waxa laga baahanahay waxa weeye inaynu tayadeedana wanaagsano cadaaladeeda wanaagsano leadershipka hagayaana inuu kalsoonida ku qabnaa waxa weeye qofka uu doortay wasiirka ah ee uu hagaayo ee madaxweynuhu magacaawday waxaan ku kalsoonahay inuu nidaam wanaagsan ku hagaayo marka kurtu hagaagsan tahay ee ay si wanaagsan ku hagayso waxba ku tari maayo wasiir yaro reerkiina laga soo magacaaba laakiin waxa wax ku gaarayo dadka gaarayo deegaano walba gaarayo reer walba gaaraya waxa way wax qabadka laga doonayo dawladda taasaan ayaa dadku u baahan yihiin aduguna u baahan aduguna aad u baahan tahay laakiin reerkaaga kama dhex muuqdo iyo reerkayga kama dhex muuqdo waxaas inuu wada deeqi mayso xaqna maaha marka way ka dhex muuqataa reer Soomaaliland de inoo qaybsamay mayso jufo iyo caqaar iyo jirjilib ta xukuumaddu inoo gaari mayso waa inuu nidaamku wanaagsan inoo wada gaara marka taasaan doonayaa in dal lagu shaqeeyo oo madaxweynuhuna aanu nidaamka u dooranay tahay Sultan deegaanada ka soo jeeda waxay ku baaqeen shir isugu imanayaan beelaha garaxjiisa ku qabsan doonaan magaalada Ceergaabo arintaasi bulshada kula muuqata dadka waxa way beeluhu shirarkooda ducaadiyada ay qabsanayaan iyo waxyaabaha gaarka u leeyihiin waxa way xaq loo leeyahay inay qabsadaan adina uma diidayso horna waa loo shiri jiray dibna hadii loo shiro dhibaato ma laha taasoo iyadu wax dhibaato aan uma arko arintii xanaftii siyaasadda iyo doorashooyinka way naga dhamaadeen xisbiyeen oo ahaan xisaaба la ahaa way naga soo xirantay beeluhu wixii ay gaar u shirayaan reer badan oo Soomaaliland degan baa jiro oo inta danahooda ka shiraaya ama magaca ka shiraan ama mustaqbalkooda ka shiraan ama waxay ka shirayaan iyaga taala beeluhu cidina uma diidayso beelaha shirarkooda oo wax mamnuuc ah ma jirto laakiin waxa weeye arrimihii siyaasadda waa ogeydeen way naga soo xirantay xisbiyadii waa isku haniyeeyeen xilwareejinadii waa la sameeyay waxa halka wax weyn oo dhibaato ka oogani anigu moogi beeshayduna beelaha reer Soomaaliland ma kamid tahay wax ka bedelan maaha marka soo dhaweynaysa shirkadu taanu shirka waxa weeye horta waqti shir dhaweey baabar ka soo baxrayba beelaha shir dhaweeyo Hargeysa lagu qabto beesha qabsatay baa jirayba
marka ka de wax weeye in kasto aanan de anu warkiisa aad u haynin haddana wax weeye de shirarku ceeb maaha wixii lagu wanaajiyay ummadda waa lagu shiri karaa wixii lagu xumeynayna de wax weeye loo baahno way soo bixi doonaan cidii wax ku xumeynaysa marka anu shirka de warkiisa badan aad uma hayo runtii laakiin de waan maqlay maanta tarniman ku dhabaaqay shir ku baaqay laakiin de wax madax dhaqameedka iyo beeshu ay ka tashatay oo shirinay qaatay ku tashatay ilaa hadda ma jirto laakiin de waa wixii soo baxa halka waa la ogaa doonaa insha Allah taala